بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Xuseen Maxamed Ibraahim. waxaan maanta taariikhdu tahay 26 January 2020 halkan idinku soo gudbin doonaa insha Allah taxgabaya taas oo magaceeda la yiraahdo digniin. waxaana ku bilaabmaysaa sidan dhageysi haboon. ma doonayn inaan gabay diriye deelka maansada markaan daa yiraahdaba fariin dooli baa iman dirqibay markaan noqon inaan diha shareemaaye dibnihii xinaaba markaa hadalka soo deeyni markaasaan halkay daaran tahay taxalla doontaay dalab iyo shax labada mid baan haatan dagayaay u diyaar garow maansadaan daacad ku warin dadkayga oo qabiilkii bariyahan dayre laga keenay deegaameynta beeluhu wadaan baan ka digayaay nin waliba markuu meel dulaha qabala soo dayrtay ee daaqsintii iyo dhulkii jiingad lala doontay dariskiisii baa diinna yidhi oo dagaalamaya daabiyadaha la iskula xintami way ka darayaane ninkii daawo moodayay oo dabargo weeyaari dudariixis iyo hawl xun bay daba ku haysaayeen dagaalada sokeeyaha waxaa keenay degalkeena ee la isu dooxayo waa inaan dareenaay niman qabala maanta la daga xilal ku doonaya kursi dayday waa waxa kharibay dagaladeennii Soomaalida deegaanka ay hadaan laga digtoonaanin hormar doora lama gaarayo uu dib dhacayaay hormar doora lama gaarayo uu dib dhacayaay digniin kalena aan ku dulmar saad dareentaane dirir iyo qabiilkii wada xumaha doonaya wuxuu daafurayaaba waa inaan ka diidnay dhig daatoomo baahnin iyo wiilkas loo dilay isku duubni iyo qarannimo daawadeenahay dawladii haddii aan shacbiga hawshan laga duulin xirbeegti daacada hadaan dibadda loo saarin on dagaalka beeluhu wadaan looga digin haat durbaan khalada kii qaatay ee dirir soo xayta haddii aan dastuurka iyo sharcigu marimindowgiisa dagaalada sokeeyuhu wadaan way ka darayaane Soomaalida deegaanka ay hadaan laga digtoonaanin hormar doora lama gaarayo uu dib dhacayaay mar kale taan ku dulmar deelka maansada dibindaabiyadii xaajada dawgu ka habaabay ee in loo dadaalo la saxo inaga doonaysa haddii aan dariiqii ku wacan haatan lala doonan on daacad loo noqonin on la isu duudraacin on duruufta waayuhu la yimid deyrka laga saarin kadin dibadda laga soo galoon cidaba daymoonin dulduleelo saasaan arkoo laga dusaayay Soomaalida deegaanka ay hadaan laga digtoonaanin hormar doora lama gaarayo uu dib dhacayaay da kale taan ku dulmar dowgalbaad jire dadkeena qabiil dooriye qarankii loo diiday wuxuu reer galbeedkii u duray dacartana u siiyay ee uu u doordooranay ugu dulmeerayo ee daalimka aygu uu inaga soo doonay wuxuu dibadihii ooga yimid doqonka reer Faris shidaalka duleedkeena yaal inuu la duulaaye duniduba waxay eegayaan deemanka diini ciideena dahabka markuu damacu soo aaday isku duubnideennii markii daar la rogi waayay in qabyaalad lagu kala diraa loo daliishaday Soomaalida deegaanka ay hadaan laga digtoonaanin hormar doora lama gaarayo uu dib dhacayaay da kale taan ku dulmar saa u dihataani dahriya shilaabiya dhulkii gaaska lagu dayray dusha elale kaalu waxa dheeman lagu daadshay wabiyada duraabaya iyo tooga daacaya iyo dooxyada ambeeranee dalaga soo saara hadaan nacamka daandaansiga laga digtoonaanin oo aan waraabaha dul tuman day ka oran weyno durdurada shidaalka iyo nimcada wada duraabaysa dambarkooda lama maalaye way dac gurayaane wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.